السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وإذن سلامي وحا إلها إذن كدرجين يا عمري دير عبادة لما يسترن يعافماد أن ملكستو جوكتان كسو دواذا channel كس أنفع كعما فرن وجه فرن ودنا فرن كسو دواذا إن شاء الله وانيجي شكرا آدن marka insha Allah maanta waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago shan nooc oo kala duwan ee dadka aadan aamini karin oo u baahan tahay inaad iska ilaaliso. yaa kula tashantaas qof bal isku day inaad dadkaas inay dad aad isku haleyn karin ana aamini karin shan nooc ee dadka dabeecadahooda kamid ah. hadaa ku aragtay shantaas qof intaas dabeecadooda qaar kamid ah ama badankood inaadan 100% aaminin ka digtoonaatid waa muhiim. marka sida uga digtoonaan lahayd waa mid adiga qaas ku ah, waa mid adiga gaar ku ah, waa mid adiga aad go'aansan kartid oo kan koowaad qodobada aan sheegay shanta oo ah midka koowaad marka waa maxay ay kula tahay. midka koowaad waxa weeye qofka ku dhaho ma sameyn kartid waxaas sababtoo ah ilaahay ayaga kaaga ma imaanin balse ay waxay sababsanayaan qof hadda ka hor wixii sameeyay oo ku guul dareystay. marka waxa ku dhahay hebel iyo heblaaya hadda ka hor waxaan sameeyay way u hagaagi weysay way u shaqeyn weysay. marka adiga waa muhiim inaad u sheegtid oo dhahdid aniga waxaan niyad iyo qalbi ayaan hayaa hamigeyga weeye inaan wax raba kamira dhaliyo inaan heerka ka gaaro balse macnaheeda ma ahan hebel iyo heblaaya hadda u shaqeyn weysay in aan ii shaqeyn weyso. qof kasta waa calafkiisa, qof kasta ilaahay wuxuu u qoro mariyaa balse qofkaas hadduu si joogto ah ku dhahayo waxaan adiga ma sameyn kartid ogow inuu saaxiib fiican ahayn ama qof wanaagsan ahayn sababtoo ah horumarkaaga, guushaada iyo rabitaankaaga iyo hamigaaga ayuu kasoo horjeedaa balse wuxuu isku dayayaa qofkaas inuu ku niyad jabiyo aad meesha ayaga ee fadhiyaan la fadhisid. qofka labaad ee aad marnaba aamini karin waayo qofkaas kolley waa iska fahmaynaa kaas dhammaanteen. qofkaas waa qofka xanta badan leh. Soomaalida waxay dhahaan kuu sheekeeya kaa sheekeeyo. qof marba inuu ku imaado oo saaxiib ama walaal ama ehel iskaga kaa dhigayo balse dadka kale kugu xamanayo ogow ka digtoonow qofkaas sababtoo ah qofkaas hadduu asaga ama iyada qof kale kugu xanto oo qof kale wax kaaga sheego ogow adigana intaas lagu xamanayo oo wax lagaaga sheegayo waxaa la raadinayaa un fursad aad adiga meesha uga maqan tahay. qofkaas marnaba iskuma aamini kartid, qofkaas marnaba sirtaada uma sheegan kartid, qofkaas marnaba ma aragtay hamigaaga iyo horumarkaaga iyo guushaada iyo loolyal maal lahaa ma u sheegan kartid sababtoo ah qofkaas qof hadal badan hadduu yahay xan badan qof markaas waxa weeye qofkaas qof xaasid ah. qofka hadduu xan badan yahay xaasidna wuu yahay sababtoo ah qofka hadduu xaasid ahayn dadka ma xanto wuu isku kalsoon yahay wuxuu ilaahay siiyana wuu ku faraxsan yahay ilaahay ayuuna aaminsan yahay. qofkii saddexaad waa ayo qofkaas yuu noqon doonaa. qofkaas kole asna waa iska dareemi kartiin oo maleynaa ani waan soo xasuusinayaa si aad uga digtoonaataan. qofkaas waa qof been badan. beenta sida ognahay waa xaraan balse maanta wuxuu ku leeyahay bari meeshaas taga bari waxaasan ku siinaa bari saasaan ku siinaa bari saasaan qabanaa bari meeshaas aadeynaa ama balan mar walba kuu dhigo balanta kasoo baxaynin. qofkaas marnaba ma aamini kartid sababtoo ah wuxuu ilaahay xaarameeyey ayuu xalaalsaday ama xalaashatay sababtoo ah taas sababta ugu weyn waaye aad adiga u aamini karin. qofkaas waa muhiim inaad ka digtoonaatid, qofkaas waa muhiim inaad ka fogaatid, qofkaas waa muhiim inaad la talisid, qofkaas waa muhiim inaad wacyigelin siisid balse hadduu qofka mar walba joogto ah been uu sheegayo barbagaanta uu isku soo daba dhijinayo ma aamini kartid qofkaas mana isku haleyn kartid sirtaada iyo rabitaankaaga iyo hamigaaga iyo horumartaada iyo xanuunkaaga iyo dhibkaaga muu sheegan kartid because qofkaas waa been badan yahay. hadalka qofka afaraad yuu noqon doonaa. qofka afaraad waa qofka wuxuusan lahayn taabto ama qaato ama tuug ma aha laakiin waa tuug u eke qofkaas sababtoo ah wuxuu leeyahay qofkan saaxiibaday waaye ama waxba ma idhahayso waa ogahay ma ka xumaanayso oo waxaaga iska qaadanayo oo dharkaaga iska gashanayo waxaaga amar la-aan amar ku siinaynin oo kalsooni buuxdo asaga ama iyada isa siisay adiga adoona siinin amarkaas. qofkaas ma la aamini karo sababtoo ah qofka dareenkiisa iyo maskaxdiisa ma ogid. dad waaweyn marka maadaama aan ahay waa muhiim in la is xushmeeyo, waana muhiim in amar la kala qaato, waana muhiim in la is dhageysto, waana muhiim in aad iyo aad la isku xushmeeyo. xataa qofka adoo ku kalsoon walaalkaa yahay hooyada aabaha dhaleen waa muhiim inaad wax si wanaagsan u weydiisatid ba si kalsooni aad wax adiga lahayn farahaada u galinin aad u taabanin aad u qaadanin because taas tuug cad ma tihid laakiin tuug qarsooni madow waa tahay sababtoo ah qofka marka wixii inuu ka xumaada laga yaabaa kaa xishoodan inuu qofka dareenkiisa ku
marka qofkii shanaad uu kula noqon karaa tolo bal isweydii qofka shanaad waa qofka aan naxariisna lahayn qofka aad aragtid ilmaha yaryar oo ma aragtay waxba aqliga iyo aqoonta lahayn markuu dhib ku dhaco naxariisanin qofka marka aragtid ma aragtay hadal wanaagsan hadaa dhahdid hadal xunbo naxariista dhan ilaahay ka qaaday ma fahmaysaa naxariista waa muhiim ma fahanto qofkaas ma aamini kartid sababtoo ah qofkaas laga yaabo wax in hadhow loo soo sheego kabacdina naxariis inuu kuu fiirna qofka haddii mararka qaar wax qalad lagaaga sheego adina dhahdid oo maybe qofkaas wuu daalnaa maybe qofkaas wuu xanuunsanaa inaa marmarsiyo u samaysid marmarsiyada waxay ka mid tahay naxariis sababtoo ah qof marka u naxariisatid waa degaysaa adiga ma qaraaraysid ma dagaalamaysid ma aflagaadeynaysid dadka xumaan kalena ma samaynaysid marka waa muhiim qofka inuu naxariis leeyahay qof hadduu naxariis lahayn iska jir kana digtoonow inaad 100% aamintid marka maanta 5taas qodob ayaan idin soo diyaariyay insha Allah sidaas ayaa idinkaga sii tagayaa waad mahadsantihiin fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe saar hanaga iloobin waad ogtahay waa bilaash iska saar on waxba kuguma fadhiso insha Allah haddii aad ka heshina like saar fadlan adoo mahadsan mar labaad dadka la sii wadaag aad ay u mahadsan tahay maxaa la dhahay dadka hore igu xirnaane aad ayaad u mahadsantihiin 100% khayr ilaahay idin siiyo dad wanaagsan ayaa tihiin dadka emailada ii soo diray oo mar walba iga warhaaya adinkana aad ayaa u mahadsantihiin insha Allah bishaan barakeysan ee Ramadaan ilaahay dhamaanteen caafimaad cimri dheer cibaado wanaagsan ilaahay hana wada siiyo ilaahay kuligeen jannada hanagu wada kulmiyo ilaahay dhibka hanaga ilaaliyo dhamaanteen mar walba dunida ka joogno insha Allah saas ayaa idinkaga sii tagayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh